السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا سلام دمان أصحابتي مeel kastoo adduunyada ka joogtaan. waa barnaamijkeeni socdaalka kamarada. maantana barnaamijkayaan ku falanqeynaa. maanta waxaan ku falanqeyn doonaa waxa jiro dadyo fara badan oo ku soo caanbaxay ama yaani ku soo bandhigay xeeladooda ama qaab jilninkooda aaladda la yiraahdo TikTok. soo marka waxaan rabnaa caawo barnaamijkeena ku soo qaadano dhalinyarada Soomaaliyeed ama gabdhaheena Soomaaliyeed dhinac kastaba gabdhaha iyo wiilashaba dhinac kastaba dhalinyarada yaani ugu jillinka qurxan xaga aaladda TikTok-ga yaani hadii la dhaho waxa la jiro qaabka macnaha u jilayaan ama qaab jillinkooda. okay barnaamijkan ma ahan barnaamij yaani qof kaliya oo gaar u leeyahay waa barnaamij shakhsi walba uu ku soo bandhigi karo hibadiisa ama yaani qaab jilninkiisa oo wax u jili karo. aaladdan TikTok waxa laga leeyahay wadanka China waxayna u sameeyeen in ayaga ay ku sameystaan waxyaabaha ay suuqa la joogaan ama waxyaabaha macnaha yaani looga baahan yahay in xayisiin lagu sameysto oo kale. sababaha ugu badan ay u sameysteen ayaa waxay tahay yaani China waa wadan aad yaani businesskiisa u fara badan yahay sababahaas awgeed ayaa macnaha waxay uga fikreen in macnaha TikTok lagu sameyn karo yaani shakhsi walba oo gurigiisa joogo ugu yaraan hadii uu sana account ku leen xitaa inuu fiirsado oo yaani uu ka warhayo dunida waxa ka jiro. aaladda TikTok waxay noqotay aaladda ugu badan ee lagu soo gudbiyo yaani si degdeg ah hadana aad uga warhesho. okay aaladda TikTok waxay ku fududeynaysaa in macnaha aad wax jiri kartid qaab ahaan haday film tahay haday tahay wacdi iyo waano haday whatever you want in yaani wax kasta u baahan tahay bulshada kula wadaagi karto. okay maanta waxaan rabnaa inaan fiirino dhalinyarada Soomaaliyeed ee yaani ku takhasustay ama yaani ku quruxda badan qaababka ay ugu jilayaan waxyaabo aaladda TikTok-ga. ugu horeyn aniga kulay ma dhihi karo shakhsigaas ayaa ila badan mar raba dad ajaanib ah yaani barnaamijka soo qaato kaliya waxa barnaamijka uu quseeyaa dhalinyarada Soomaaliya markii laga hadlo dhinac walba. okay aniga waxaan ku hormari rabaa yaani qaab ahaan yaani jilinkooda aan ka helay dhalinyaradan anigu kulay waxaan u maleynayaa in magaalada Muqdisho ku nool yihiin waa team nin la yiraahdo dhalinyaro Soomaaliyeed oo cod halaasi leh oo ku luuqeynaya anaashiid iyo heeso kofra oo iskugu jiri doona Soomaali, Carabi iyo luuqada kale. haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo Mustafa manba'u lis-safa el amor vuelve empezar eres luz que puedo tocar este corazón. صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي. waxayna qaadi doona fanaaniin Soomaaliyeed iyo kooxda Najuum Muqdisho. barnaamijkuna waa Toon. waxaad kala socon kartaa Rashka Production maalin walba oo Khamiis ah saacadu markay ay tahay 4 galabnimo. Rashka Production hal abuur iyo tayo midaysan. كل واحد ملانا نين فنان أهويان عبد الرشيد محي الدين أيالا يراهدا وفنان صوماليات لكن أنت بدن كوهيسو يعني أما يعني وحن ملانا إنه كبر باري أدو قلنا كعربتا حوجا نشيدوين إيو يعني هسبا اللغة العربية نقص صاري. أوكي وحو دردر قليا دلينيرادا وحو نجعلي هاي يعني من لماذا الصومالية وحو نكوعد عليا يعني فرين كسابسن يعني إن دلينيرادا لقد أدعي إني تحي دولكوضا أما ودنكوضا هويو إني سنجرين وح وقوانا أكسنين. أوكي تيم أيا جيرو qayb kamid ah ayaa ka soo galo TikTok dadkaas ayaan jeclahay ani ahaantayda waan taageeraa sababtaan u taageerayna waxa ay tahay yaani waxyaabaha ay ku soo bandhigaan waxa yaani qofka bini aadanka oo markaas muwaadinka ah wax dhiirigelinayo haday tahay dhulka hooyo in laga hadlo haday tahay yaani in lagu amaano dhulka hooyo haday tahay yaani inkastoo aniga aan jeclahay hees hooyo uu soo saaray oo ah heesti ahayd hooyo macaanay hooyo adduunyadan ilaahay baraariye uunka ku wada nool ilmahaagi weeyaan kulay anigu heesasna waan jeclahay runtii waana dhageystaa waa qof yaani jecel dadnimada iyo yaani
waalidka in la ixtiraamay iyo in dalkaaga markaas ku quseeya inaad yacni hawlihiisa kugu aadan aad qabato. Okay, tiimkaas waxay soo saaraan yacni nashiidooyin ama waxay soo saaraan yacni heeso ku saabsan waddankeena Soomaaliya. Okay, qofka ugu horeyn waa yacni qofka ugu horeyn waa qof Ilaahay yaqaan inuu yahay. Tan labaad waa inuu og yahay waalidkii dhalay ixtiraamka uu yahay. Tan saddexaad soo raacdo waa in waddankiisa uu ka warqabo. Okay, qofkaasi yacni Cabdirashiid Muxyidiin waa nin dardar galiyo dhalinyarada inteeda badan jecelna in intuu jaamacadaha tago hirgeliyo howlaha loogu qabanayo shaqooyinka waddanka hooyo. Bal haddii aan fiirino qaab ahaan sida ay wax u qabanayaan. haddaan calan yahow tusheeyo daruuraha sare ku geyn wixii hore aan dayacay dib baan ka hagaajino dunida adiga u sarreyn dastuurku ilaaliyo cid ku damqanaysa iyo aqoon-yahan daacadow rag iyo dumaraad lahayd. kolley waad arkaysiin baan u malaynayaa sida quruxda badan ee dhalinyaradaas wax u soo saaraan. calankaagu waa hibo sharaf kugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiranayse. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه. aniga laftirkeyga waan jeclahay idinkana waxaan u malaynayaa inaad jeclaan doontaan insha Allah taala. barnaamijkan wuu sii socon doonaa yaa ugu taalantiga badan aaladda la yiraahdo TikTok waan soo qaban doonaa. idinka laftirkiina qaybta Instagram-ka igu soo dira insha Allah. Instagram-kayga wakasa qaybta Instagram-ka igu soo dira dadka isleedihiin aad bay macnaha jillinkooda u qurux badan yahay. barnaamijkan aanu kaliya ma daadihin doono idinkana wada ila wada doontaan. waxaan falanqeyn doonaa qofka aad ii soo dirtaan anigana waan ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. barnaamijkan oo kala ah intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tagay amaana Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.